السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراليال كسو دوادا عشركنا أفراد مقعي عبد الرزاق مهدي كسو دوادا وراليال سومالي ويف تريدر ما أنتم واحد بلابن هدو لي هذا عشركنا أفراد فيديوهين امتحانها هاي دوني نتكون فهمتو سوق فوركس تريدين سوق فوركس تريدين نهانتي anigu waxa igu kalifay inaan video soo duubo han dadka u bayaamiyo waxaan arkayaa mataqaanay waayadanba in ay jiraan wax forex loo eegaysiin dadkii la dhacayo oo dadka hantidoodii la guranayo qof kasta oo horta raantina lagu baaqi lahaa forex garanaya oo wax soo dhigtay oo waqti galiyay in dadka Soomaaliyeed fahansiiyo waa maxay forex waa sidaas businessada caadiga ee dhulkeena ka jira qofku waa ku faa'iidi karaa waana ku khasaari karaa labadaba waa leeyahay waliba waxa la yiraahdaa 95% dadka adduunyada bilaabo forex-kan way xagga khasaare u badiyeen sababtoo waxyaalaha keenayna waxa kamid ah qofkii una aqoonti ana baranin patient una la iimaanayo dulqaad xakameyn maadaama dadku ay u barteen in markasta la xakameeyo oo la maamulo maadaama qofka suuqa laga yidhi adiga unba kugu xidhan tahay inuu qofkii naftiisa xakameyn waayo waqtigu wuxuu lacagtu doonaa ula galo waxaad ka saqaf intaas oo $100 baan ama intaas oo $100 baan ku khasaaray maxaa keenay wixii wax keenay emotion marka qofku marka qaar ku gaadhay marka lacag buu khasaaraya lacagtii wuxuu soconaya lacag kale ka dibagay waxyaalo noocaas forex-ku waa shay khasaarana lagu gaari aad mataqaanaa ka soo gaari karo faa'iidana aad ka heli kartid marka inagu aan asxaab ahaan iyo mataqaanaa marka inagu cashir ahaan aan inila wadaagayo waxaan jeclaystay bal horta inaan waxa forex-ku yahay aanu fahmo haddaan hore uga socono cashirkeena maanta qaybta afraad waxa ku qaadan doonaa three types of market analysis three types of market analysis-ka iyo types of market waxa jira market analysis iyo types of market waya market analysis maxaa laga wadaa sida sawirka inooga muuqato saddex baa loo qaybiyo market analysis-ka laba laakiin ugu waaweyn waa technical analysis fundamental analysis iyo sentiment analysis wax la yiraahdo waan arki doonaa technical analysis waa maxay technical analysis waa taxliilin farsamo ahaaneed iyadoo laga tixraacayo ama laga mataqaan tixraacayo dhaqdhaqaaqa qiimaha suuqa macnaha waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waxaad baranaysaa price movement-ga waa price movement sidoo adoo ka eegaya history maalmihii hore waayadii hore suuqa muxuu sameeyay adoo baranaya suuqa maxaa ka dhici jiray muxuu sameyn jiray sababtoo ah marka wax la tixraacayo waxa laga tixraacaa wixii hore u soo dhacay ayaa looga dab qaataa waxaad uga dab qaadanaysaa chartiga aad joogto iyo shumacyada suuqa ayaad baranaysaa qaabka u sameeyeen maxay u sameysmeen halkay gaadheen sidii markii hore ay sameeyeen hadda ma sameeyeen wax la mid ah waan arki doonaa technical analysis-ka waxyaalaha kamida iyo waxyaalaha la adeegsado way badan yihiin waana inoo soo socota laakiin waa taxliilin farsamo ahaaneed oo adiga kugu xidhan oo qofku inuu barto loo baahan yahay oo qofka iyo cilmigiisa ku xidhan iyo inta uu garanayo shaygan taas waa technical analysis-ku waa wax adiga kugu xidhan oo inaad barato ay tahay suuqii oo waxaan forex-ka aanu baranayna ay tahay badankeyga qofka waxyaalaha ugu badan ee uu barto looga baahan yahay waa technical analysis qof inuu yaqaano taxliilin farsamo ama farsamo ahaaneed inuu qofkii shaygii au yaqaano oo mataqaanaa taxliilin karo ama au mataqaanaa au shaygii garanayo oo darsi karo oo si uga soo dhex baxdo waxa dhici kara waa tahay fundamental analysis muxuu yahay fundamental analysis waa mid ku xiran dhaqaalaha labada wadan ama wadanka aad lacagtiisa aad meel gashanaysid ama maanta aad rabtid inaad ka ganacsatid fundamental analysis waxa kamid ah dhaqaalaha wadankaas waa sidee maanta dhaqaalaha wadanka ama labada wadan ee rabtid lacagtooda kala bedesho haye waxa kamid ah siyaasadda wadanka ma fadhida political stability-giis economic halkiis waa sidee mataqaanaa rate of mataqaanaa employment waxa la yiraahdaa
shaqaalaha reedka shaqaalaanta iyo shaqadiisu waa sidee dhaqaalihiisa waddanka ma waddan kor u kacayba ma waddan waxyaalahaasoo dhan maanta ma waxa ka dhacay masiibooyin sida dhulgariiro xanuuno ma ka dhaceen waxaas waa wax lacagta waddankaa saamayn ku yeelan karay laakiinse adiga aan kugu xidhnayne aad u baahan tahay inaad wararka iyo newsyada aad kala socoto websayda lagala socdaana way jiraan oo na geeni doona insha allahu tacaala waaya sentimental analysis baa jira isagu sentimental analysis waxa weeyaan isagu badanka aad uma sii weyno waa qiimeyn maxay dadka kale ee suuqan badan ee kula midka qof walba markuu suuq ku jiro ayuu haystaa waxbaa soo akhrin waxbaad soo aragtay qofkana aan laga yaabin wax soo arkay maxay dadka badankoodu lacagta maanta inaan galaha rabo maxay iyaguna ka leeyihiin waxa la yidhaha sentimental analysis ayadana waa tahay aan ka socono fundamental analysiska waa sida dhaqaalaha waddanka ama wadamada aad rabto in aad lacagtooda aad maal gashato yahay dhaqaalahoodu waa isla fahnaa filaya fundamental analysis waa nooca hadba si aan ula soconno waxaa jira websiteyo inaga caawinaya inaan la socono websitadaas maxay kaliyiin hal website waxa weeyaan trading view baa la yidhahdaa oo technical analysis kusuu khaas u yahayo waa meesha aad chartiga aan ka geli doono in ka analysis gareyn doono analysis technical analysiskeena aan samayn doono waa laga yaabaa inaad meelaha ku aragtay charts ama waa laga yaabaa inuu suuq ku bilaabay yahay adigu aad fahmayso laakiin si trading view waa meeshii aan rabnay inaan suuqa inagu ku analysis garnay kii inaga inagu xidhnaa aan rabnay waxaa jira meel la yidhaha forex factory wax lagala socdaa warbixina maxaa wadamada maanta lacagaha maxaa warbixino ka jirta warbixin xasaasi maxaa ka jirta wadamadan adduunyada waa wadamo hore maray waxa u xisaabsan inta guriga sanadada mataqaanaa la kireeyay ama kira la'aanta alaabaha geli waqtiga dheer oo laya ayaa yaala shaqa la'aanta taala waxa la yidhaha interest rate baa jira oo mataqaanaa in waddanka dhaqa interest rate waxa wuxuu noqonayaa lacagtan dulsaarka ma hoos baa loo dhigay ma kor baa u kacday way saamaysaa lacagaha dhaqaalaha waddankana way saamaysaa taana waa lagala socdaa investing.com labada waa lagala socdaa lacagaha iyo mataqaanaa sida ay yihiin iyo awoodooda strengthskoogana waa lagala socdaa wararkana waa lagala socdaa investing.com waayahay haddaba tables of market baa jira marketkuna tables buu leeyahay oo maxay yihiin tabeskiisa trend market waa suuq jahale ama waa suuq jahaysan waayahay waa suuq adigu jahale jaha cayiman markaas iyo suuq loo isna la yiraahdo ranking market oo suuq ugu badan ama sideways saad oo maqli doonto laga yaabaa inaad maqashay suuq jahaysan creditka iyo erbixinta waxa iska leh macallin aniguna wax ka soo bartay macallin uu la yiraahdo qofka creditkiisa waa la siiyaa marka af Soomaali ahaan ay u bixiyeen ayaa ila qumanaatay in lagu qeexi karo trend market inuu yahay suuq jahaysan marka waxa jira ranking market isaguna ama sideways oo ah suuq line laba line u dhaxeeya oo sideways u socda laakiin isagu aan kor u socon ama hoos u socon choppy market baa jira waa suuq isagu suuqa choppy marketku aan boring ah oo xilliga la price building la yiraahdo weeyaan waa waqtiga uu suuq u jaha samaysto kala uu rabo ayuu samaysmaa way waan arki doonaa trading market waa suuq jahale haye trading market waxa loo qaybiyaa laba qaybood baa loo qaybiyaa ama up trend ama down trend baa loo qaybiyaa ama mid kor u socda suuq ama mid hoos u socda weeyaan ranking market ama sideways waa suuqa u dhaxeeya laba xariiqood ama wuxuu socdaa si barbar ayuu socdaa korna isagoo ma socdo hoosna uma socdaan arki doonaa haddaan ku aragno xoogaa nituso xoogaa yar raalnaba haddaan maqasho suuqa jahaysan waa suuq saan u socda saas u socdaa saas u socdaa saas u socdaa saas u socdaa suuqaasi muxuu socdaa kor buu socdaa suuqan kor buu u socdaa maxaa la odhanayaa suuqan waa suuq jahaysan oo kor u socdo up trend ka lagu sheegayay waa suuq saa u socda suuqna waa suuq saa u socda suuq saa u socda suuq saa u socda waxaan bullback baa la yidhaha waan baran doonaa marka suuqna waa suuq saa u socda kaas waxaa leeyahay waa suuqa trendiga ah ee jahaysana ka sheekeynanoo laba nooc
laba dhinac buu jeedaa ama hoos buu saa ugu socdaa wax la yidhahdo wuxuu sameeyaa kor buu socdaa higher lu wax la yidhahdo waa higher weeyaan kana waa higher oo sareeyaayo higher lu waxa kana ka hooseeya waa higher kana high kana ka sarreeya kana waa lower oo high sar iyo ka sii sareeya macnaheedu waa higher iyo higher lower baa la yidhahdo ku soo kor socmaa la wuxuu sameeyaa higher iyo higher lower فين جونتان انت كده اسكراف ماشي انا قسمت مره نو وايه سوق سير ويسكو دوم بخيا سير ويسكو waa sidano sabana saas uu noqonaya suuq saan socdo xariiq marka ka dhigato waa suuq saan socdo saas uu baxaya waa soo daadanaya halkan ku soo noqonaya saan uu soconaya hadan saan uu kala soconaya saan uu socon adigu waa suuq aanan jihaysnayn laakiin barbaro kala saa ugu socdo saas uu kala socdo ويان سوق اللي قولي هي والرنجن وسوق سوا سوق سيدويس واحد جرا مid kala raad mid waxa jira marka la yiraahdo sagana mid la waxa jira Joey marka waa suuq saas kala waa suuq saas kala waa suuq saas kala oo dhinac u socdo trend maaha trend maaha waxa laga gala maaha waa suuq sigigiisa saas waxa la marka price building oo suuq rabo inuu jiha cusub sameeyo ayuu sameeyaa marka bacdina saas u boodaa waayahay kaan waan ragnay isaga hadda baan ka socono waad kala fahanteen baa filayaa saddex suuq iyo waxay kala yihiin waayahay waayaan ka socono waayahay Joey market waa kan Joey market suuqa ugu xun marka la joogo suuqa forex-ka Joey market ma aha suuq laga trade gareeyo maaha Joey market waa suuq samaysma marka uu suuqu rabo inuu jaha cusub sameeyo waa soo wada fahanaysa waaya suuq waayahay waa tahay marka three types of suuqa ayaan maanta soo baranay iyo waxaan kaloo baranay in uu suuq leeyahay saddex nooc oo mid Joey la yiraahdo oo isagan arki doono iyo mid la yiraahdo matqanaaye trend market iyo sideways waayahay hadaba fundamental analysis keena markaan eegno waxaan u baahanahay website la yiraahdo investing.com investing.com baad ku qoraysaa goolkaaga investing.com waa website ka weyn application buu leeyahay sala loo soo degay isagana waa la wadaagi doonaa haddii application-ka investing.com-ka waa website-kan waxaad kala soconaysaa wararka waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay analysis-ka waxaad tagaysaa forex halka currencies meesha ku qoran tahay sorry xogaa arblock baa isticmaalaysaa ku sheekanaya marka dib baan u dhiganaa kan isaga sida loola soo degay iyo saas oo dhan ma fahmi doonaa trading view bayna soo haray trading view waa meesha aan suuqan aan ka sameeyay aan ka taxliilino weeyaan isagu waa meeshan aan chartiga iyo shumciyada suuq si isku beddelayaan kala socon waaya marka haddaan adigu ku sameysnay waxa odhan doontaa join free baa markaa sameysnaysaa horta join free xagan waxaad gelinaysaa magacaagaad gelin tusaale ahaan emailkaagaad gelin xagana waxaad gelin password baa samaysan kabacdina waxaad ayaa free baa oranaysaa waan akhriyay xagana check baa saari sign up baa oranaysaa kabacdi emailkaaga ayuu link kugu soo tuuraya linkigaas ku soo dhufani kabacdi saas kugu samayso ana already waa samaysan yahay qofka cilad kala aragtana hadduu doonayo waan la hagaajin doonaa haddii la yiraahdo marka aniga wuu samaysan yahay marka waa kan trading view waa kan chartigeeni iyo sidaan u galaynay
baan tusi doonaa. waa kan chartigeeni sana loo analyze garanayaa. marka waan wadaagi doonaa sida bal analysis-kan iyo qaabka waxa loo sameeyay waxaan dib baan ka fahmi doonaa haddii la yiraahdo. website-ka waxaa inoo haray Forex Factory way inoo haray. Forex salaadii baa waxoogaa ku jira markaa sorry tigaan dib baan ka soo dhacnay. laakiin haddaad kala kulantaa waxaad qaada commentigaad ka dhigan doontaan waan fix garanaynaa. waaya marka u horeysa bahashan oo kale kuma taabo. website-ku waa iska san ka soo gashid waad habaysanaysaa. waxaad ka dhiganaysaa xagga saacadaada buuxsanaysaa. saacada ee buuxsanaysaa xagga waxaad ka dhigaysaa soo doorto meesha ay ku qoran tahay 320 Riyadh iyo Moscow iyo kamida safe changes ba oran say saacadu wadankaaga u noqoto. waayahay kabacdi waxaad tagaysaa hoostaas waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay market bahashan waa tan. waa kan meesha suuqa markaa kala soconaysa London session, Tokyo session xilliga oo furmo, London session xilliga oo furmo iyo New York session xilliga oo furmo. afarta your time bay ku noqonaysaa. marka isagana waa wax lagala socdaa wararka. sidoo kale waxaan tagi doonaa saa wararka loogala socdo. wararka waa kan maanta waa xad marka wax warar ma jirin. berri oo kale eegayna waa kuwan wararka berri jira waxaa jira New Zealand buu warka jira iyo Japan waa holiday ku jira guri. German kana warba ka jira. filtering marka wax la ilaa jira waxa tigta saaranaysa waxyaalaha muhiimka kan oo bangiyada maalintaas lacagta ay freega bangigu holiday ku jiro iyo lacagta casaanka oo ah news aad saameyn weyn u leh weeyaan. click apply ba oranaysa ka bacdi saas ugu soo dhacaya. sida loo habeysanayo waxaan filayaa inaad waxun ka fahantay. aad baan idin salaamayaa. waxaan ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullahi